iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وعن كبل هذا آيات السجالة كمدة سورة مريم قيبت هذا قال الله تعالى إلهي باوحوري قال إلهي وحوري مركو نبي زكريا وجوابه كذلك الأمر كذلك أرن كواس ثلاثة قاضي قال ربك إلهي وحوري هو هين هو علي هين ولد كاسي أنيقه ويسهلين كسيا وقد خلقتك من قبل ربنا ما أديك وانكو أبو رئيسك كهر ولم تكن شيئا أدون شريمبا وحباهي قال مركا النبي زكريا وحولي رب اجعل لي آية إلهي وعلامة إيا لو علامة السيان كو قرتولت كينو على القلعي قال إلهي وحولي آيتك علامة داغ الله تكلم الناس وإن ندتك الله ظل 3 ليال سد حبين سويا أضعف ما القواه أن عذر اثنين فخرج على قومه قلدي سيبوا كصابح من المحراب هل كنت كان يبو نبي زكريا كصابح فأوحى إليهم وحو إشاري أموت المامي أن سبحوا كذا بكرة وعشيا قال إن كوريا كدببت كذا يا يحيى أبو لهيد مركو يحيى ده شيء خذ الكتاب بقوة كتاب كي لقولت دون يقال جدال نكو قال وآتيناه الحكم سريا حكمة بانو سينيبو لهاي فهم وناكسن يسقو يربا وحنانا بانو سينيبا لهاي حريص جعيل وهليو من لدنا وأكتا يذكاها تو الزكاة إيو نظافة وكان تقيا وحوها من إلهي سكعب صلاة وبرا بوها سمفله بوالديه لبدي لليبو سمفلي ولم يكن معه جبارا عصيا جبارا ميدس وينيا عصيا وفلاقه oo waalidka ku madax adag ma ahayn wasalaam alayhi nabadgaliya yaxya dushiisa ahaatay yawma wulida maalintii la dhalay wa yawma yamuutu iyo maalinka uu dhimanayo wa yawma yub'athu iyo maalinka la soo saaray xayan isagoo nool wadkur fil kitaabi maryam nabi maxamed oo maryam ruuxa dumarka ah la oran jiray wanaagsanay quraanka ku sheeg id waqti ka waran intabadat min ahliha reerkeedii bay ka durugtay ama ehelkii ay isxigeen makaanan sharqiyan meel dhinaca bari iyaga ka xigtay u durugtay fatakhadat min duunihim intii iyaga ka sokaysay waxay samaysatay xijaaban daah bay xidhatay faarsalnaa ilayha ruuxana waxaanu yadii u dirnay malagga iyagii malakul jibriil fatamathala laha bashara wuxuu isugu soo eegaysiiyey qof bani aadama sawiyan oo dhamaystiran ama waafiyahoon waxba ka dhinayn ee wanaagsan qisadii nabi zakariya ay noo socotayoo markuu ilaahay su-aalay anigi iyo ooridiiba sidan aanu nahay sidee baanu u dhali doonaa warkaba waa loo soo gaabiyey gam ku sii weey qaala kadalika waxa weeyaan waa khabar mubtadiisu go-an yahay alamru kadalik arrinkaa aada su-aashay sidaa lagugu sheegun weey wax nuqsaamaya wax naafanaya toona ma jiro sidaas aad ku helaysa iyadoo aduguna aad caynkaa tooday weynaatay islaantuna ay iskaba caynkaa too madhalaysay waladkaa waa helaysa iska liqbaalaya caqiidee sidaa haddii loo sii macaaneeyo loo sii baacbaaciyeyna waxaa lay qaala rabbuka huwa calaya hayin ilaahagu fariintu kuu sheegayaa waxa weeye waladkaa inaad heshood sidaa ku hesho way fududay waxba kuma adkaadaan ilaahay ogow وابا لو سي معاني هدنا وحلي وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا وهذا مياند سيغي 10 قفك الله سييه waxa ugu wanaagsan ka naftiisa laga siiyo hadii qaacido lagu dhiibo tusaalaheeda waxa ugu wanaagsan ka adiga kugu saabsan ee laga siiyo adiga bal adigu seeg balay adigu marka hore miyaan ilaahay ku abuurin adiga oo aan waxba ahayn abuurkan oo kale buu la mid yahay taadi ku xibra qaado waaye warkuba halkaas ku dhamaaday dabeetana xiisaha uu qabo wixii aad xiisaynaysa had iyo jeer aad jeceshahay calaamadaad u raadisa iyo warwarays Soomaa waxaad tiraahdaa war bal ka warrama war waxaasi ma soo dhowya
halkuu maraya wixii kuu soo kordhaya dad iyo duunyo ilays baad ku raadinaysa marka si liyastabshir si uu bushaaraysto qaala rabbi ijcal lii aaya calaamad baan doonayaa ilaahay calaamadii ilaahay kama shakisana waa liyadma'ina alqalb si qalbigiisu usii farxo marka ilaahay wuxuu calaamad u dhigay haddana isaga laftiisaba calaamad ka fog maaha aayatuka allaa tukallima annaasa 3 layaalin sawiyan 3 habeen unba hadalku iska kaa taagaya adoo caafimaad qaba ilaa hadduu cudur ku dhaco hadalka waxa ka joojinaya uu noqdo cudur waa musiibo waa dhib soo gaadhaya ilaahayba wuu fududeeyey marka hadalku unbaa ka hakanaya marka aad aragtay inuu hadalkii istaagay ooridii uur bay leedahay ku abshir weeye astaan ilaahay oo cajaa'ib badan weeye marka sawiyan 3 habeen oo siman ma aha sida la yidhi laakiin siday ku fiican tahay waxa weeye sawiyan adiga oo caafimaad qaban cuduraysnayn sidaasuu dabeetana warkii ku qaatayoo wuxuu markaa isu diyaariyey isagiiyo dadkii la joogayba diinta ilaahay shaygii calaamadda weyn u ahaayo salaada ah in la oogo diibuu isu taagay markaa isagoon tukin karayn oo aan hadli karayn haddana doorkiisii buu qaadanayaa doorkii ahaa inuu hogaamiye diineed yahay cibaadadana dadka ku hogaaminaya fakharaja calaa qowmihi min almixraab gurigiibuu ka soo baxay mixraabku waa meesha lagu xarbiyo ilaa mixraabku waa halka lagu tukado waa musallihiisiio shaydaanka lagula dagaalamaa mar kastood masaajidka ku jirto ribaad baad ku jirtaa siduu nebigu ku tilmaamay difaac ilaa weerar baa kugu socdo halkana lagaa soo fujinaya lagaa soo saaraya markaa minal xarbi bay ka timid oo dagaalka meeshii uu ku tukanay wey fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa cashiyan ereyga waxyigu macnayaal badan buu yeeshaa luqada carabiga waxaa ka mid a ishaarada ayaa ka mid a iyo tilmaanta awxaa ilayhim wuu u tilmaamay tukada gelinka hore iyo ka dambeba marka halkaa waxaad ka arkaysaa inaanay diinba ahayn diin binaa salaadi diin binaa salaadi ma jirtee diin waliba salaad bay leedahay wakti kastoo la tukadaba gelin hore iyo gelin dambe la tukanayaa qur-aanku waa kalaam baliiqa wixii markaa la iska fahmayo wuu iska dhaafaa ruuxii dumarka ahayd urbay yeelatay lasoo sheeg 9 bilood baa dhammaaday waladkii ilaahay ugu bushaareeyey wuu dhashay magaciina waa loo bixiyey yaxyaaba gaadhayba wakti lala hadli karaba intaasaa ku jirta halkaa iska fahmaysaa yaxyaaba ilaahay toos ula hadlay kolkii hore zakariya ahayde yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwa waxaa loo dooranaya loo baryaya wuxuu inuu kitaabka dhaxlo kitaabkii nabigan lagu soo dejiyey kitaabkii la haystay qaad oo dadaal ku qaad quwaddu waa dadaalka awooddu insaanku uu leeyahay ta ugu mudakarsanay waxa weeye quwada iimaaniga ah dadaal ku qaad aanad waxba kala hadhayn ilaahayna waxa uu tilmaamay waladkan qiimaha uu leeyahayoo iyo inuu kitaabka ehel u yahayoo wa aataynaahu lxukma sabiyan xukun baanu siinay baa ilahay ui isagoo sabiba ah marka xukumkaasi waa faham diinta uu fahmo waa xigmad ilaahay uu laabtiisa u furay isaga oo da-yarba xanaanku waa naxariista naxariis weyn ayaa ilaahay u siiyey oo jacaylkeedii wadata zakaaguna waa nadaafadda walad naxariisna iska la siiyey nadaafadna lagu arsaaqay taqin ah oo ilaahay ka cabsanaya bal intanoo arrimooda ilaahay isugu daree waa walad barakaysan oo ilaahay si u naxariistay oo ilaahaysana ka cabsanaya subxaana wa tacaala awsaaftiisii inuu inankani yahay mid la aqbalay oo sidii uu doonayay si ka sii wanaagsanba loo rabeeyey sidii ilaahayba maryan uu yihi waanbatahaa nabaatan xasanan ayaa ilaahay uu sii xusay walad waxa u wanaagsan labada xaqa u waaweyn ka hirgeliya waa xaqa ilaahay iyo xaqa waalidka waa labada xaqa u waaweyn ee qur-aanka ilahay isku xidhiidhiyey xaqi ilaahay iyo xaqi waalidka wabara biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya labada waalidna mid u samafalayay buu ahaa muu ahay mid kibraa ama caasiya ilaahay baa waladkaa usii barwaaqeeyey oo balaayooyinka o dhan ka nabadgeliyey oo wasalaamu calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcahu xaya 3 maalmoodba nabad buu leeyahay markuu dhasho markuu dhimanayo markuu dhasho iyo markuu dhinto iyo marka lasoo noolaynayo qisadaasi halkaasay ku dhammaatay qisada labaad ee ku xigtaa waa qisadii maryamo bintu cimraan weliyaddaa ilaahay
awliyada ka mid ah oo qaarkood ay gaalada ku sheegeen nebi weli ay ku sheegeen ilaah iyada iyo inankeedaba taariikhdeedii baa halkan ilaahay ku xusaya taariikhdii inankeeda lagu xusaya sidoo ku dhashay xaaladeedu sida ahayd waxay ka been sheegeen iyo diimahay badbedeleen runtii waatan wadkur fi lkitaabi maryam qur-aanka dhexdiisa kaga waran shayga qur-aanka dhexdiisa laga warramay wax shakila maaha wax dhaliille maaha idin tabadat min ahlihaa makaanan sharqiyan ehelkeedii bay ka durugtoo meel gaara bay iska degtay si ay ugu khalaaweyso dhinaca barigana had iyo jeer meel qiblo u ahayd ay u jeesan jireen bay ahaydoo waa meel ay markaa dee u jahaysan jireen kol haddee xagga qiblada saynu inaguba ugu jeesanno markaynu ama cibaadaysanayno ama dikri qur-aan akhriyayno saasoo kale halkaa ugu durugtay waxay markaa samaysatay xijaab maadaamay rag ajaanibi jiraan iyaduna qof cafiifa ah oo dhowrsoonay tahay dayr bay ka samaysatay malagii baan u diray baa ilaahay ruux tanazalu lmalaa'ikatu waruux malaa'igtaa soo degtay iyo malaga ruux la idhaa waa malaku jibriil magacyadiisa mid ka mida ilaahay baa u diray si waladkan ugu hibeeyo fatamahala laha basharan sawiyan bani aadam dhammaystiran oo aan sawir malagna ka muuqanin nuqsaan iyo ceeb lahayn qofkii u sharaf badnaa ee u wanaagsanaaya iyadoo muuqaalkaa uu leeyaho sidaas ayuu isugu soo shabaho uu u yimid si uu waladkan ugu hibeeyo waxaynu arkaynaa markaynu dib ugu noqonno aayaddaa 9aad ka soo bilowno fawaaidka waxaa ka mid a haddii wax kugu adkaadaan ilaahay ula carar subxaana wa tacaala bani aadamka waxway ku adkaadaan laakiin haddaad bani aadamka ula cararto wixii inuu kasii daraa laga yaaba haddaad laakiin ilaahay ula cararto wixii kugu adkaado ood ku celceliso ood ka daali weydo wuu koo furi uun taana waaqica wax badan ka markhaati kaca oo sidaynu ognahay ee mushaahadka ah wax badan oo aynu la diiqadaysannahay oo duruufaheenna ah ilaahay markaynu gacmaha hoos dhiganno wuu inaga aqbalaa subxaanahu wa tacaala qisadu waxay noo muujinaysaa nebi zakariya calayhi salaam mar kastuu ilaahay baryo baryadiisa ilaahay waa aqbalaya waxaa uu yidhi walada sii waa la siiyey haddana wuxuu yihi calaamadii samee waa loo sameeyey oo ilaahay waa aqbalay anigii waan gaboobay islaantiina waa madhalays isagiina dib u habeyn baa loo sameeyey islaantiina waa loo furay wuxuu sheegayba ilaahay waa ka aqbalay markaa nebigu siduu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa xayiy waa mid xishood badan buu nebigu wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu markuu baryo gacmahoo madhan inuu ku soo celiyo markaa kolleyba ducada wuu aqbalayaa markaa waxay qisadu ina baraysaa ducada inaynu badino ilaahayna aynu rajo wanaagsan ka qaadano subxaana wa tacaala markii ducada loo aqbalay nebigan salaadii buu isu taagay taasi waxay sheegaysaa shukriga ilaahay aynu umahadnaqayno waxaa ka mid ah cibaadada oo markaa tasbiixdaasi waa madhar min madaahir shukr waxay u taagantahay salaada iyo tasbiixdu waa camalkii oo waa mahadnaqii oo camal ah siduu ilaahayba nebi daawuud faray icmalu aala daawuuda shukraa waqaliilu min cibaadiya shakuur waxaan kaa doonayaa mahadnaq shukri ah markaa kolka wax lagu aqbalo shukrigaad badinaysaa cibaadadaad badinaysaa dee waxaaba sharcigeenu noo jideeyey sujuud la idhaahdo sujuudu shukr waa cibaada aynu ilaahay u mahadnaqayno subxaana wa tacaala yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwa kitaabka qaad laakiin lifaaqa loo raaciya waxa weye awood baa la doonaya kitaabka inaad ku qaado taasi waxay sheegaysaa cidamu nicma yuuriu cidama almuhima qof kastoo ilaahay nicmo weyn uu siiyo waxa saaran xil weyn marka nicmada lagu sii badiyaba hadde xilkuna wuu sii weynaanayaa ogow cidda ugu nicmo weyni waxayd ambiyada ilaahay iyo aqoon-yahanka diinta ilaahay uu baro ammaanadaa u xambaariyey iyo ummadda cidda xilkeeda ka mas-uula mar kastuu xilkaagu weyn yahay oo wax weyn ilaahay uu ku siiyo ood aada u jeceshahay muhiimadaadii iyo xilkaaguna wuu sii weynaanayaa markaa kol hadduu ilaahay nicmadan weyn ku siiyey adigana waxaa lagaa rabaa xilka weyn inaad qaado marka ha u qaadanin hadduu ilaahay dheef ku siiyo diin iyo dunyaba inaad iskaga faanto una dadku inaad wax dheer tahaye waad ka xil weyn tahayoo xildhibaanka u weyn baa ta isogow markaa xilkaasi hadduu ku dhibi waayana xumaantaadaa sii weynaanaysa
qisadu waxay noo muujinaysaa qofka nicmooyinku ilaahay siiye waxaa ka mid a xikmadda uu ku siiyo yaraanta ama uu ku waafajiyo oo dadka ilaahay waddada wanaagsan waafajiye intay yaryar yihiin waa dadka soo baxee horeeya maadaama hankoodii weynaaday markaa waataynaahu lxukma shabiya xikmaddii iyo waafajintii iyo fahamkii isagoo yar baa ilaahay uu siiyey dadka taariikhda had iyo jeer meel ka gala waxay soo baxeen wakhtiga yaryihin oo waxaa la yidhaha man shaba calaa shayin shaaba calayhi qofkuna waxaa wanaagsan uu ku barbaarunbu ku weynaanayaa sidaa daraaddeed qofku intuu yaryahay in waddada lagu rido waa wuxuu islaamku inoo farayo ee la leeyahay carruurta salaada fara ku edbiya dee si waddada ha dhowta u qabsada intaasun baanu ka soo harhayninba markaa dib u akhrido culimadii iyo asxaabtii iyo mid waliba markuu yaraa ayuu dhismahaya waddada wanaagsan iyo xikmadda ilaahay uu soo waafajiyo la soo qabsaday hibooyinku ilaahay bixiye waxaa ka mid a inuu qofka isu waafajiyo tan ilaahay uu siiyey waa naxariis iyo nadaafad iyo taqwo oo markaas waxaa weydaaranaya shubuhaadki iyo shahawaadki nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu baryayay allahuma aati nafsii taqwaaha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mowlaaha ilaahay naftayda waxaad siisaa alla kacabsigeeda cid nadiifisa adaa u wanaagsan markaa taqwo iyo nadaafad waa waxaa naftu ay macno ku yeelan karto qisadu waxay noo muujinaysaa 3 maalmood baa la tilmaamay inuu ilaahay nabadgelyo siiyey nebi sakariye wasalaamu calayhi yowma wulida wayowma yamuutu wayowma yubcathu xaya nabadgelyada 3daa jeer ilaahay wuxuu si gaara u calaamadiyey waa 3da jeere waxshada qofku u badanta ama cabsida iyo cidlada sufyaan bin cuyayna muxadidkaa weyn baa caynkaa lahaaya awxashu maa yakuunu alkhalqu fii 3 mawaatin qofka bani aadamka ahay 3da jeer ugu cabsi badan yahay wey ee isbedelka noloshiisu ay qaadato la yaabka badan mid waa markuu uurka hooyo ka soo dhaco ifka yimaado waa kan waraaqayba ay qayliyay meel siigadu ka dhacayso oo kulul buu soo galay adduunyo la yiraahdo habkii u noolaaba isbedelay iyo halku wax ka qaadanay iyo xaaladiis waa ka ilmi waraaqay la leeyahay amusiya maalintaas iyada shaydaankiina uu hoos raacaya waa kan gujinaya sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam maalinka labaadna waa marka intoo la xabaalo dadkiisii iyo dunyadiisii iyo dalkiisii iyo ehelkiisiiba intuu ka tago ummad kale uu halkaa xabaalaha ugu tegayo maxaa ka soo bixi talow weelkiisu muxuu noqon doonaa maalinkaasina waa maalin la yaab leh ee waaga uu ku bariyo ama gabalka uu ku dumo iilka iyo xabaashu maalinta saddexaadna waxa weeye fi maxsharin cadiim marka la isugu yimaado meel qiyaamo la yiraahdo fagaaro ah oo dadkii oo dhan ilaahay uu ku soo xadiriyay la soo baxo 3 isbedelo la yaab leh oo tahay ilaahay adoonku mar walba uu baryo oo xusuusnaado marxalad uu joogo kuwa ka dambeeyay inuu ilaahay hagaajiyo siba adduunyadan qisada taa ku xigta markaynu gaadhno fawaaidkeeda wadkur fil kitaabi maryam waa magaca kaliya ee dumar leeyahay ee quraanka ilaahay uu ku sheegay dumarka wanaagsan iyo kuwa xun isku wada dar dumarada kale oo dhan ilaahay si dadban buu u sheegaa ama tilmaamahoodu baa la xusaa 34 meelood baa ilaahay quraanka uu ku sheegay waxa iyaduna cajaa'iba waa 12 suuradood baa 34 ka jeer ilaahay uu ku soo celiyay mar wuxuu magacaasi la sheegan yahay aabaheed marna wuxuu la sheegan yahay inankeedii maryam oo ciise oo hooya ama maryam bintu imraan baa la oranaya macnaheedu markaa waxa weeye maryam waxa magaceeda ilaahay uu magacaabaya oo waliba marna uu raacinaya waladka marna waalidka maryam waxa weeye ilaah ma aha marna iyada wax dhashay marna iyada la dhalay ilaahayna sifaadkiisa waxa kamid ah lam yalid walam yulad lama dhalin waxna ma dhalo xagaad ka keentay ilaahnimadeeda qofkan waa qof la dhalay oo ina imraana ama iyadaaba wax dhashay oo ciise dhashay marka lifaaqaasa mar walba la socda taasina wuxuuna difaacaysaa ay deedifaynaysaa meesha ka saaraysa diin laawayaasha kristanku waxay maryam ku sheegeen maryam meeshan ay u durugtay waa meel ay ku khalaaweynayso alunsu billaahi yaxtaaj ilaa makaanin khaali markaad ilaahay weheshanaysa meel cidlaa baad u baahanta dadkan saxmadda badan ee buuqa leh si aad uga durugto khalaawadu waa waxyaaba ay ku wanaagsanta wey iyo wehelka ilaahay waana ta keentay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii waxyiga lagu soo dejinayay qaaru xiraa buu dee galay
halkaasuu khalaawada la galay doorka uu xijaabku ku leeyahay dumarka iyo dhowrsoonaantooda ayaa aayaddu tilmaamaysaa fatakhadat min duunihim xijaaban ruux cafiifada oo gobonnimo iyo ammaanle waxaa lagu yaqaanaa xijaab iyo asturnaa gurigeedana way ku asturan tahay dharkeedana way ku asturan tahay qaawanaantuna waxay ogtahay xumaanta iyo ceebtay leedahay doorkii xijaabka ka muuqanaya aayaddu waxay noo tilmaamaysaa alisticaadatu billaah markabu salaamati min almakhaawif jin iyo insi balaayo iyo baas wixii kugu soo jahaystay ilaahay unuga carar wallahu subxaanahu watacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان